السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنadihii horaantii sagaashamaadkii howlgalkii cuslaa ee la magac bahay rajo soo celinta Soomaaliya ee ay qaramada midoobay ku wajahday xaaladii wadanka Soomaaliya waxay noqotay arrin taariikhi ah iyo mahadho aan marnaba la ilaawi karin, gaar ahaan dagaalkii cuslaa ee dhex maray maleeshiyaadkii xoogaga SNA iyo isbahaysigii ciidamada huwanta ee uu hogaaminayay wadankaasi Mareykanku, gaar ahaan markii ay Mareykanku isku dayeen in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyihii SNA General Maxamed Faarax Aydiid Allahu naxariiste. Admiral Jonathan Howe, taliyihii ciidamada Mareykanka ee howlgalkii ay qaramada midoobay ula baxday rajo soo celinta Soomaaliya ee sanadihii sagaashamaadkii markii dagaalka u dhaxeeyay xoogaga Soomaalida ee SNA iyo ciidamada gaashaanbuurta ee Mareykanku horkacay aad u kululaaday ee khasaaraha ugu badan soo kala gaadhay labada dhinac. Waxa uu Admiral Jonathan Howe mar walba ku taamiyay in ay gacanta ku soo dhigaan hogaamiyihii SNA ee dagaalka hubeysan kula jiray Mareykanka iyo huwantiisa. Waxa uu Mareykanku tale ku gaadhay in laba arrimood mid uun laga keeno General Maxamed Faarax Aydiid. kow, in la soo qabto isaga oo nool, dhaawac ama badqab, iyo laba, in la soo dilo oo meydkiisa la keeno. labadaba Mareykanku waa ku guul daraystay, waxaana taa beddelkeeda isaga kaga dhintay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho in ka badan 80 askari oo Mareykan ah, kuwaasi oo hal maalin oo kali ah 18 askari meydkooda dhulka shaaracyada magaalada Muqdisho la jiiday. maalmihii haddaba dagaalka ugu adag ka socday magaalada Muqdisho, Admiral Jonathan Howe waxa uu dilka ama soo qabashada General Maxamed Faarax Aydiid u xil saaray laba sarkaal oo sare oo generaal ah in ay hormood ka noqdaan howlgalka lagu soo qabanayo ama lagu soo dilayo General Aydiid. labadaasi generaal inta badan warbaahintu kama ay hadli jirin oo xog badan kama aanay hayn, sidoo kalena Soomaalidu aad uma taqaano, gaar ahaan intooda baaritaanada ku samaysa taariikhda Soomaalida ee waqtigan casriga ah. waxa ay kala yihiin labada nin ee Mareykanku u xil saaray in ay geeri iyo nolol mid uun ku keenaan General Aydiid: Thomas Montgomery, taliyihii ciidanka falcelinta degdega ah ee Mareykanka Quick Reaction Force, iyo General William Garrison oo ahaa taliyihii ciidanka gaar ahaan guutooyinka loo yaqaanay Task Force Rangers and Delta Force oo dhammaantood ka mid ahaa howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya. labadan generaal waxa ay u tafaxiiteen hirgelinta hawshii loo xil saaray, waxaanay saldhigyadii maleeshiyaadka Soomaalida gaar ahaan SNA ku qaadeen weerar culus oo aan kala go' lahayn oo cir iyo dhulba ah, kuwaasi oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka noocyadooda ugu dambeeyay, gantaalada ay tuuraan diyaaraduhu, ciidanka afantariga ah ee lugta ah, iyo xataa gantaalo laga soo tuurayay maraakiib dagaal oo ku sugnaa badweynta Hindiya, gaar ahaan agagaarka xeebaha magaalada Muqdisho. dagaalkan cirka iyo dhulkaba ahaa waxaa lagu xasuuqay dad aad u tiro badan oo Soomaali ah oo ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaana ku leeday dadweyne maati ah oo aan waxba galabsan oo marka horeba la dhibaataysnaa dhibaatadii dagaalada sokeeye iyo dawlad burburkii Soomaaliya. howlgalkaasi ay hogaaminayeen labada nin waxa gebi ahaanba ku fashilmay Mareykanka oo waxa uu qorshihiisii noqday hal bacaad lagu lisay marka laga tago khasaaraha shacabka Soomaalida soo gaadhay. Mareykanka ayaa dagaalkan ku jabay. dagaalkii Admiral Jonathan Howe iyo saaxiibadiisii uu shirqoolka Aydiid u diray ee kala ahaa Montgomery iyo William Garrison waxa uu noqday mid aanay waxba ka hirgelin. kibirkii Mareykanka ayaa la jabiyay. muddo kadib markii ay dalkoodii ku laabteen ayaa waraysi u bixiyay General William Garrison oo la hadlayay wargeyska New York Times. waxa uu calaacalay si weyn, inkasta oo uu mar walba eedda jabka saarayay hoggaanka sare ee Mareykanka. goobaha furimaha ah ee aanu dagaalka kula galnay maleeshiyaadka Soomaalida waan ku adkaanay oo annaga ayaa guuleysanaynay mar walba, laakiin ujeedada dagaalka mar walba waanu ku jabnay oo taasi ma qarin karo, waana xaqiiqo aan shacabka Mareykan iyo dunidaba u sheegayo. sidaas waxa yidhi William Garrison oo la hadlayay warbaahinta Mareykanka markii uu ku noqday dalkaasi Mareykanka ee uu soo gabagaboobay howlgalkii Soomaaliya. jabkii iyo guuldaradii la baday Mareykanka maalmahaasi, wasiirkii gaashaandhigga Mareykanka oo la odhan jiray Les Aspin ayaa isku casilay fadeexadii ku dhacday dawladda Mareykanka iyo howlgalkeedan Soomaaliya. markii uu Mareykanku Soomaaliya xamaantiisa ka qaatay, waxa ay warbixinaha rasmiga ahi sheegeen in howlgalkaasi Soomaaliya dalka Mareykanka lagaga dilay in ka badan 80 askari oo commandos ah, halka lagaga dhaawacay 120 askari. isaga oo difaacaya dadaalka lagu doonayo in lagu soo qabto General Maxamed Faarax Aydiid ayaa General Montgomery waxa uu sheegay in Mareykanku uu sirdoon wanaagsan haystay waqtigaasi, isaga oo adeegsanaya dad Soomaali ah
oo basaasiin u ahaa Mareykanka. waxa uu sheegay in Generaal Maxamed Faarax Ciidiid oo uu ku sheegay qabqabla dagaal uu shacabka ku hoos dhuuntay oo ay si xun u jabiyeen maleeshiyaadkiisa. Generaal Montgomery oo arrinta soo qabashada Generaal Maxamed Faarax Ciidiid iyo dagaalka ka hadlaya waxa uu yiri qiimeynta military iyo qorshaha dagaal waxa uu ahaa mid aad u sareeya. waxa khasab ahayd in aanu soo qabanno ama aanu soo dilno Maxamed Faarax Ciidiid oo haystay ciidan iyo hub badan aadna xariif ugu ahaa dagaalka dhuumaalaysiga ah ee jabhadeynta. waxaan naga go'naa in aanu dhabarka ka jabinno iska caabintii maleeshiyaadka SNA ee Muqdisho kuwaasi oo ahaa kuwa fashiliyay howlgalkii qaramada midoobay. sidaas waxa yiri Generaal Montgomery isaga oo qiray inuu ku kala duwanaa waxa ay warbaahintu ka sheegaysay howlgalka gaar ahaan dagaalka iyo sida ay iyagu qorshaha u wadeen. waxa uu ku dooday in aanay doonaynin Mareykanku in ay laayaan shacabka Soomaalida ee Muqdisho balse xoogaga SNA ay shacabka ka dhigteen gaashaan. generaalka kale ee William Garrison ayaa isna laga hayaa hadallo taariikhda galay oo uu ka sheegay howlgalkaasi isaga oo aqalka sanadka Mareykanka la hadlayay. waxa uu yiri Soomaalidu waxay ka cabsadaan oo ka baqaan AC-130 ayuu yiri Generaal Garrison oo la hadlayay guddida sanadka ee arrimaha amniga. laakiin Generaal Garrison ayaa sidoo kale ku dooday in ku guuldareysiga soo diritaankoodu aanu ahayn mid dhammaan ah sida loo dhigay ee ay howlgalkii Soomaaliya wax badan ujeedooyinkiisa ka fuliyeen walow military ahaan aanan ku guuleysan buu yiri sidii ugu haboonayd guulna aanan ka gaadhin wixii aanu ka dooninay ama aanu ka rabnay ujeedooyinkayaga. AC-130 uu sheegay Generaal Garrison waa qori darandoori u dhaca oo dhimbiilo culus ku daadiya hadba bartilmaameedka lagu garaacayo kaasi oo yeesha firid iyo qaac olol ah oo wada socda. waxa qorigan xambaara diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka waxaana la sheegaa in qorigaasi khasaare ba'an u geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho intii uu socday dagaalkii howlgalka soo qabashada Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ee u dhaxeeyay maleeshiyaadka Soomaalida ee SNA iyo xoogagii huwanta ama gaashaanbuurta ee Mareykanku hogaaminayay. Generaal Thomas M. Montgomery waxa uu ku dhashay Indianapolis ee gobolka Indiana dalka Mareykanka. waxa uu ka tirsanaa oo xilal kala duwan ka soo qabtay ciidamada Mareykanka ee Mariniska. waxa uu shaqaynayay marka laga hadlayo howlgalladii uu hormoodka ka ahaa ama uu askariga ka ahaa intooda badan sida howlgalladii Soomaaliya iyo dagaalkii Vietnam. waxaanu ninkaasi shaqaynayay oo ciidamada Mareykanka ka mid ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1963 ilaa 1997 oo uu noqday howlgab dhinaca howlgallada ciidamada ah. dhinaca darajada waxa uu ciidanka ka gaadhay darajada Lieutenant General. muddadaasi uu howlgallada ciidamada Mareykanka ku jiray waxa uu ku guuleystay abaalmarinta bilad sharafta biladda adeega difaaca ee loo yaqaano Defense Service Medal. dhinaca kale generaalka kale ee William F. Garrison oo lagu naanayso Bill waxa uu 27 bishii June sanadkii 1944 ku dhashay deegaanka Mineral Wells ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. sanadaha uu adeegayay ciidamada Mareykanku waxay ahaayeen intii u dhaxaysay 1966 ilaa 1996. darajada uu ciidamada ka gaadhay waa Major General. howlgallada uu ka soo shaqeeyay waxna ka hogaamiyay waxa ka mid ah oo ugu caansanaa dagaalkii Vietnam iyo Mareykanka. howlgalladii loo yaqaanay Joint Special Operations Command 1992 ilaa 1994. howlgalkii soo qabashada Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ee dagaalkii Muqdisho ama Muqdisho Battle oo ahaa 1993 ilaa 1994. isku soo wada duubo saaxiibayaal, labadan generaal oo ahaa raggii loo diray in ay gacanta ku soo dhigaan ama soo dilaan Generaal Maxamed Faarax Ciidiid. sidaasi ayuu howlgalkoodaasi ku noqday mid guuldareysta oo ay taariikhdu in badan ka sheekayso. mawduuceena maanta halkaas haynoo joogo, tan iyo intayna mawduuc kale ka soo qaadan doono dagaalkii SNA iyo UNISOM 2 inagoo jecel inaan qaybteena kale oo qaybtan ku xidhiidhsan aan ku soo qaadan doono Isniintii Madoobeyd oo loo yaqaano maalintii jabka ugu weyn soo gaadhay ciidamada Mareykanka iyo gaashaanbuurtii uu hogaaminayay ee howlgalka rajo soo celinta Soomaaliya. waa sanadihii 93 ilaa 94. tan iyo intayna mawduuca ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.